doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo codeynteeda ayaa waxaa markaasi tartamayay amaba maanta la soo bandhigay ilaa 7 kursi oo ay u tartamayeen xubno kala duwan iyadoo maanta ay guuleysteen mudanayaal gaaraya ilaa 7 xubnood mudanayaasha guuleystay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig xildhibaanad Xamse Sheekh Xuseen Cabdicasiis Cabdullaahi Yuusuf iyo xildhibaanad Maryan Awees Jaamac iyo Luul Aadan Cismaan Libaax Ibraahim iyo sidoo kale Cabdullaahi Yuusuf Xasan Alankey markii doorashada ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaan dareenkooda wax ka weydiiyay qaar ka mid ah xildhibaanadii maanta guuleystay ee ku guuleystay qaar ka mid ah kuraasi baarlamaanka ee qaarkood maanta la doortay howlwadeenadii ka qayb qaadatay dhinaca dawladda federaalka iyo heer dawlad goboleed runtii doorashada siday u dhacday waan runtii ilaahan uga mahad celinaynaa عليكم ورحمة الله وبركاته آدي بان ومهد علينا يا رمان تدوينها جبلان وهريو مدحوينها جبلان يا مام كيس السره أحمد محمد إسلام يا مدحديسة لوضع قلة يا رمان شعبك جبلان آدي بان مانت وفرح سنة ورين شعبك الصومالي دمانت وان سلامية سلامك بعدي دمانت ومالين تاريخية oo jidkii toosana Soomaalidu ay raacday gaar ahaan Jubbaland sida ay uga shaqeysay habka doorashada ay dadban oo loo galiyo waxaan runtii dhihi lahaa waa la tartamay cid laga guuleystay iyo cid guuleystay ma jirto waa la wada guuleystay qof baa soo bixi lahaa waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo mar kale saaxiibadii aan tartamaynay haddaba intii ay socotay doorashadaasi xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa kormeer ku yimid madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Suldaan Cabduqaadir Xaaji Maxamuud ugu dambeyntiina waxaa shir jiraayid qabtay xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal waa kan Cabdullaahi Groon oo u hadlay guddiga doorashooyinka oo faahfaahinaya doorashada maanta iyo sida ay u dhacday maanta oo ahayd maalinkii ugu horeysay ay ka dhacdo Jubbaland doorashadii ay ka bilaabatay waxa runtii farxad weyn oo ah inay maanta ahayd maalin aad u weyn oo mataqaanaa si nabadgelyo ah oo mataqaanaa aad u wanaagsan ay noogu bilaabatay anigoo ku hadlaya magaca guddiga federaalka ah ee hirgelinta doorashada dadban waxaan halkan ku cadeynayaa inuu ku guuleystay kursiga maanta lagu doortay saddexda ku tartame Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ku guuleystay 73 dhibcood haddaan u gudbo mid xubinta xigta kursiga xiga sidaas daraadeed wixii ka soo kordho dambe insha Allah waan la socodsi doonaa waxaan idinka mahad celinayaa sida qiimaha la noo soo dhaweyseen aad baad u mahadsantihiin doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo maanta ay si weyn uga furmeen magaalada Kismaayo ayaa waxaa gabagabadii guuleystay ilaa 7 xildhibaan kuwaas oo 3 kamid ah ay ahaayeen dumar iyadana 4 kale ay ahaayeen rag waxaana xusid mudan in qaabka doorashada ay ku soo gabagabowday ay ahayd mid markaasi jawi degana iyadana mas'uuliyiintii tartamayay intooda badan ay soo hambalyeynayeen maadaama ay kala guuleysteen waxaana doorashada maanta ka dhacday aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ay noqonaysaa tii ugu horeysay oo abad lagu qabto deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo waxaana shacabka isugu hambalyeynayeen amaba ay sheedha kala socdeen qaabka doorashadan ay u dhaceysay iyadoona wax badan laga baranayo aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo